muqdisho waxay shalay sagoodisay qayb ka mid ah ciidankii diidanaa muddo kororsiga. dabaabaadka dagaalka ayaa harqiyay waqooyiga caasimadda. ciidanka ayaa dhul ballaaran safay gaadiidka dagaalka. wax cabsi ah kama jirin goobta, waxaana laga dheehan karay inay yihiin guulaystayaasha dhabta ah. waxay ku celcelinayeen inay sharcigii dalka difaaceen oo ay guteen waajibkii loo dhaariyey, haddana ay ku laabanayaan goobahoodii. ilaa 80 gaari oo nooca dagaalka ah ayaa taallay waqooyiga magaalada muqdisho, kuwaas oo diidanaa muddo kororsigii farmaajo. marka laga reebo dhowr gaari oo loo reebay madaxda mucaaradka qaarkood, intii kale shalay waa ka baxday waqooyiga magaalada. Korneyl Ismaaciil Cabdimaalik, taliyihii hore ee ciidanka Danab oo horkacaya ciidankii qabsaday agagaarka sayidka ee kaabiga u fuulay madaxtooyada, ayaan weydiinay cadadka gaadiidkii dagaal ee ay wateen ciidankii magaalada saddexda jiha ka joogay. waxa uu sheegay inay dhinaca waqooyi ee magaalada taallay ilaa 80 tiknika ah oo ay beebayaal ku jireen. wuxuu intaa ku daray inay dhinacooda taallay 15 gaari, halka aagga Siigaale oo ah dhinaca Saadaq John, liibaan madaxweyne Indhacadde, kuwaasoo ka dagaalamay agagaarka madaxtooyada yare Cabdiqaasim, inay iyaguna haysteen ilaa 20 gaari. tirada guud ayuu ku sheegay 115 gaari oo nooca dagaalka ah inay fashiliyeen muddo kororsigii farmaajo. waxa uu sheegay inay jireen ciidan kale oo joogay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe oo diyaar u ahaa inay soo dhaqaaqaan haddii ay xaaladdu adkaato. marka la eego xuduudda ciidan ee magaalada taallay, waa mid aad uga fog warkii ay faafinayeen howlwadannada filla Soomaaliya ee ahaa inay ciidankan yihiin tiro yar oo kooban. haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa waxa sababay inay shalay awooddooda qayb ka mid a bannaanka soo dhigaan. 1. muujinta inaanay maleeshiya ahayn. saraakiishii hogaaminaysa ciidanka oo aan weydiinay sababta ay shalay u sameeyeen bandhigaas, waxa ay sheegeen inay rabeen inay ummadda tusaan inay yihiin ciidankii xoogga dalka ee magaalada muqdisho xoreeyey kal hore, haddana ku hor yimid muddo kororsigii sharci darrada ahaa. 2. inay quwad culus yihiin. askartu waxa ay sheegeen inay rabeen inay shalay dadka tusaan awoodda ciidan ee taallay waqooyiga muqdisho oo keliya, oo aan lagu darin wixii ciidan iyo gaadiid ahaa ee ku jira dhinaca koonfureed ee magaalada. xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhowr jeer laga soo xigtay inay ciidankani ahaayeen kuwo yar, laakiin saraakiishu waxay shalay muujiyeen inay ahaayeen cudud xoog leh oo gacanta ku qaban kartay ammaanka magaalada oo dhan. 3. inay ra'iisul wasaare Rooble u muujiyaan inay oofiyeen ballankii shuruud la'aan. Rooble waxa uu Khamiistii ku guulaystay inuu furo wadooyinkii u xirnaa ciidankii diidanaa muddo kororsiga, laakiin durba waxaa magaalada la soo geliyay warar sheegaya inaanay ciidanku rabin inay toos uga baxaan magaalada oo ay qorsheeyeen inay isu qaybiyaan magaalada oo ay sii joogaan. sababta ay askartu shalay u sameeyeen isu soo baxa waxay ku sheegeen inay beeniyaan hadalka ah inay qiyaamayaan ra'iisul wasaaraha oo aanay bixi rabin. ciidankii ku sugnaa waqooyiga magaalada muqdisho xooggoodii shalay waa ka baxeen magaalada. 4. inaanay ka amar qaadan taliyaasha farmaajo la jooga. ciidanka waxaa shalay magaalada ka saaray xildhibaano iyo guddi saraakiil oo ay doorteen. waxaa goobta ka hadlay Jenaraal Gacma Dulle oo ah ninka madaxda u ah guddiga 7 xubnood ah ee ay doorteen ciidankii ka hor yimid muddo kororsiga. taliyaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Odowaa Yuusuf oo magaalada dhinac ka joogay ayaa ku dhiiran waayay inuu u tagay ciidankaas, waxayna askartu muujiyeen inaanay isaga ka amar qaadan. tani waxay sidoo kale muujinaysaa isasaaga ku dhacay hoggaankii ciidanka iyo askarta, taas oo qasbi doonta in isbeddel degdega la sameeyo. 5. in ujeedkoodu aanu siyaasad ahayn. ciidanku waxay shalay gaadiidkooda dagaalka ku xirteen calanka Soomaaliya. sababta waxay ku sheegeen inay yihiin kuwa sida saxda u difaacay calanka iyo sharciga. waxa ay sheegeen in ka bixitaankooda magaalada ee shalay inay ku muujinayeen inaanay markii horeba u socon arrimo siyaasadeed, balse ay rabeen in sharciga lagu laabto. haddii taas la isla qaatayna waxa ay sheegeen inay goobahoodii ku laabanayaan. ciidankii kale ee ku sugnaa koonfurta magaalada ayaa iyaguna banneeyey goobihii ay difaaca uga jireen, laakiin kuma qasbana inay magaalada ka baxaan maadaama ay markii horeba u badnaayeen ciidan magaalada hore u joogay. dhoolatuskii ay shalay ciidanka ku sameeyeen caasimadda ayaa dad badan fahamsiiyey sababta ay madaxtooyada Soomaaliya uga tanaasushay dagaalkii iyo muddo kororsigii labadaba. maxay kula taadiga?